قدومي هذا سومالان ما اعتراف سنتر مايا عبد الرزاق خليف قدومي برلمانكو ولي إنكستو إسعسلات ديان برلمانكو كأقبلينو وحلكي بملا ولي هيو ما حد قدوميوه waxaan gudoomiye u ahaa hadalkaygiina aan ku daray waxa jiray Soomaaliya way burburtay waxa la samaystay maamullo baa la samaystay waxa go'aankayga iyo taladaydu ahayd goobo badan aan ka sheegay anigoo wasiir ah iyo anigoo gudoomiye ah ma kaliya gudoomiye ahaa xukuumadii ka horeysay 5 sanadood iyo badh baan wasiir ka ahaa wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ka noqday wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta ka noqday waxaan sidii aan tilmaamay ay ahayd in ay ahayd wax loo baahan yahay oo waqtigeedii yimi oo in lagu meel gaaro ay tahay oo ay ahayd dadkayguna runtii tala midaysan oo ay meel ku gaareen aanay jirin oo ay meelo badan kala jireen waxyaabaha ka midka waxa ka mid ah in dadka xuduudda aanu wada deganahay aanu ku kala nabad galno maamulkaas iyo in dadkaygu wixii horumar ah ama haw soo mareen inay system u helaan maadaama aanu jirin heshiis hore ay dadkaygu ku gaareen inay system dhistaan oo ay isku waafaqsan yihiin arrintaas un bay ahayd tii aan ku shaqaynayay maanta waxaa timi aragti ka duwan baa timi oo ah dadkayga oo ku midaysan inay taladooda iyagu gaar la noqdaan oo aan maanta ku kala qaybsanayn عبد الرزاق خليف قدومي برلمانكو ولي إنكستو إسعسلات ديان برلمانكو كأقبلينو وحلكي بملا ولي هيو قوان كيسو مركي هورين إنوغي من الشخصيقا قوان كيس الشخصيقا نويني قتيقي عبد الرزاق معها قدوميها برلمانكا معها ودنبيلة قرن ويا مانتا وين أغنى ننكا يراهدا قدوميها سا إساقو إيشيك إن ولي برلمانكي هيانا إن إساقونا وحبا كما أوتسوكيو وأنا لا فكرة بنقونية تاسو حي كتوسيسا سياسية سوماليلاند إن مشهور نمضى عن استعمال إن مشهور كأهم بكتوسيسا وايو دالكن وأكتين دبعتو نكاس كجستي إن أينو ما أنت مركا إن يدون عدبا كقصب عدبا وحبا كويدين إن أو سياسي وأبريرو إنه يراهدو نكاسي إن يعني جا وليبا سجى شرعيا نمشي شوجا سيدا صاكله وكرد يقولين عن دبعتو بدنا دالكن كجيسن isaga ayay nusqaan ku tahay wax ay u tarayso oo siyaasiyan ama aqliyanna mid ma jirto waxaan ahayd runtii inuu maanta taa aan ummadii u kala xishoodo Soomaaliland ila wax walba ummadda dad la hortimaado ku tiraahdo waa dhibaato weey waan ka xumahay runtii aad baan uga xumahay waxaanan qabaa inuu apologize ka bixiyo kelmadda oo maalinta wanaagsan ummadda inta la eegay jamac inta la ka hor yiri in uu ka bixiyo xaal ka bixiyo ayaan ka codsanayaa gudoomiyaha waayo waxa weeye dhammaanteen ummaddu afkeena eegaysa waxaanu ku hadlaynaa in eegaysa qarannimadan difaac bay naga rabtaa qarannimada iyo soo difaacdo rag baa difaaca qaar waa kuwa dhimanaya qaar waa dhaawacmayaan qaar qalin bay ku difaacayaan qaar af bay ku difaacayaan haddaad iska dhigto nooc dhexdhexaada oo isagu UN oo kala ka ameesha oo aan meeshan ahayn qarankan dadkii difaacaya aan ahayn oo aad adigu albaabadaadu ay furan yihiin wax walba ay caadi ku yihiin adeer waxa weeye si lagu aaminaaba وأدقتها وحن دوننا مركز تانا إنه كان نقدان أو رنتي كبحيان حال كبحيان دل كان نكيد دبات أوجيستا أدر وارن حقه ده نقطرين منه أنا قم نقطرين يقولون صوت رصان ما ويرهدان ما هو نجمديه أما بقى أي ما جي حساب سوق هذان يقولون لبوا الدين دخلت بقى كتير هلكها مركز وحن أمسنا رنتي إن آدي أرمها نوع عاسي وقفش كنادان وحنا قعد صلنا إنه أمضى حال عليان ويرهدان كرر هذا واحد عاي. ذلك سوماليلاند iyo Soomaaliya ninka bilaabay waa aniga. Ninka bilaabay waa aniga. Waxaana marxaati iga xirsi waa guddigii aan hoos ahaan sir ahaan isu arki jirnay inta la shaacin geed. Anaana alifay oo odayaal baan u diray waqooyiga laba oday way ka soo noqdeen dad oday soo arkeen laba kale aan u diray way soo noqdeen markii dambe wafdigii abaaraha halkan markay ka dhaceen wafdigii halka milyan geeyay 1 milyan ma ahayn waad faanaysiin 400 kun beed marka wafdigii waxa ku jira laba qof oo og labadii qof baa waxaan u geeyay Sheekh Shariif iyo Silaaya markaas wada hadlay xirsi asadana waxa kamid ahayd arrimaha soo jeedin inta wada hadlay waxa kamid ahayd ورمدها اللي سوسو عليه ودكان سيدنا هذا أو سيدنا سمع ملا أو مدحويننا دورته أو سيدنا هذا لكن سياسيا مدعى الصومال لماذا حصلنا نقطة سمعنا كبعدنا بدو
muddada waan isku khilaafsanayn annagu waxaan dhahayna 10 sano ayakuna waxay dhahayaan 3 sano waa markii koobaad siyaasadda intaan garanay Somaliland aan arko gudoomiye mucaarida oo wuxuu ku mucaariday aanay ahayn siyaasadda iyo barnaamijka siyaasadeed xisbiga talada haya laakiin mucaaradiisu ay ku wajahan tahay si dalku u burburi lahaa haddaynu soo qaadano xirsi iyo Cabdirasaaq waa laba nin oo aad saaxiib ah isku mabaadi wey waxay aaminsan yihiin isku afkaar isku mid ah waxay ka wada tirsanayeen xukuumaddii Siraayo inaad xasuusataan mooyaane waxaanay ahaayeen raggii maalintii Axmed Siraayo iska casilay raggii ugu awoodda badnaa waxaan xasuusanahay 2015 haddaad garanaysaan ama dadweynaha Soomaaliland dib u xasuustaan mareegtii la odhan jiray WikiLeaks waa tii jabsatay serverka Sacuudiga wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxaa laga soo saaray warqado badan oo sirro badan ku duugnaayeen warqadaha waxaa ku jirta warqad la lahaa Somaliland waxay saxeexday inay Soomaaliya la qaadato Confederate xilligaasi anigoo waxaan ahaa xisbiga wadani waxaan ahaa nin mucaarida waxaan u dhoofay Djibouti anigoo doonanaya fiisa dalka Mareykanka ku tagay sidaas awgeed waxaan raadiyay warqadii waxaan dabeetana xasuustaa warqadaasi wixii ku yaalay oo runtii ahaa markay dowladda Sheekh Shariif ka dambaysa kumeel gaarka ka baxdo inay Soomaaliya yeelato qaab dhismeedka Somaliland leedahay oo kale oo ay yeelato golo wakiilo iyo guurta in dowladda kumeel gaarka markay ka baxdo madaxweynaha la dooran doono Shariif ka dambeeyay uu dhamaystiro nidaamka maamul goboleedada ee koonfurta ee federalismka isla markaana uu wadanka ka qabto doorasho qof iyo cod waxaa heshiiska ku jirtay in aan wax maamul goboleeda inta Somaliland dhulkeeda aanay dowladda federaalka ka ansixin ama ka samaynin ama ka aqbalin wasababtii Cali Khaliif Gareeriye khaatumo 2013 xamar ka keentay ayay ahayd sidaa waxaa lagu furay wada hadalkii dheer ee Soomaaliya ee la galay xilliga warqadaas waxaa ku qornaayo kale in madaxweynaha koowaad ee kumeel gaar ka baxay Xasan Sheekh Maxamuud ahaa doorashada isaga lagu bedeli doono ama uu ku soo noqon doono inay noqoto doorasho qof iyo cod arrintaasina may suurtagelin oo tii farmaajo lagu doortay xamar waxaa ku xigtay ninka doorashada labaad marka la galo in muddo 10 sanadood ku siman oo ka soo bilaabmaysa 2012 yani waa sidoo qoraal ku qornaa inay Soomaaliya yani qaab dhismeedkeeda bedeli karto oo ay nidaamka maanta Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inuu u rarayo Soomaaliya ay qaadan karto si ay u noqdaan Somaliland iyo Soomaaliya laba meelood oo iskili kare arrintaasi markii warqadda noocaas u dhigneed soo baxday waxaa laga wareystay Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ahaan jiray wasiirkii koowaad uu Axmed Siraayo magacaabay arrimaha dibadda ninkaas wuxuu ku yeeday inuu arrinta xirsi ka dambeeyay ama xirsi arrinta uu saxay xirsi oo xilligaasna wasiirka madaxtooyada 2015 bilihii shanaad bay May June bay ahayd isna wuxuu sheegay in aanu arrinta uu Maxamed Cabdilaahi Cumar ahaan nin meel kasta gala inta kadib waxaan xirsi Cabdirasaaq Khaliif aaminsanahay waxay ahayn rag hawsha adag ka galay inay Axmed Siraayo talada dalka kala wareegaan inay keenaan xisbiga kulmiye musharax ay iyagu wataan kaasoo noqday Maxamed Biixi Yunis ugu dambeyntiina waa Axmed Siraayo Muuse Biixi sharaxay markuu Axmed Siraayo Muuse Biixi sharaxay xirsi iyo rag oo dhami dawladda u soo boodeen ragga saddex nin mooyaane inta kale waxaan isleeyahay majority-goodu isku mabaadi bay ahaayeen saddexdani waxay ahaayeen aan isleeyahay waa ka gaar bay ahaayeen ninka Cabdi Daahir la oran jiray Allah naxariisto iyo ninka la yiraahdo Xuseen Axmed Caydiid iyo ninka la yiraahdo Maxamed Biixi Yunis marka Maxamed Biixi Yunis madaxweynihii doonay uu waayay Cabdi Daahirna oo dhintay ninka la Xuseen Axmed Caydiidna maanta halka xirsi Cabdisaaq kaga tageen way idinka arkaya
waxay soo fuuleen faraska xisbiga wadani si ay doorashada u ridaan Muuse Biixi way suurtageli weeday madaxweyne Muuse Biixi waa ka madaxweynaha noqday intaa kadib waxay dhigteen ajandaha odhanaya inuu Cabdisaaq Khaliifna gudoomiyaha baarlamaanka 2018 ayuu shaaciyay inuu sharaxayo uu gudoomiye baarlamaan noqonay xisna wuxuu isu diyaariyay inuu Cabdiraxmaan Ciro xisbiga kala wareego isaan ku dhisnayn waa aragnimo iyo siyaasad iyo goor aan ahayn inuu xisbiga la wareego ayuu xisbiga la wareegay iyadoo doorasho madaxtooye caddayn arrintaas waxay keentay in furista ururadu ay waqtigeedii ka soo horeyso tii madaxtooyada ee islaaxiisa Cabdiraxmaan madaxweyne waad ka dhigi karaysa halka markay marayso ee ururadii la furay Cabdirasaaq iyo xis 2022 nin kastoo siyaasadda la socdo hadduu dib u dhigto meelo aan muranka siyaasadeed laga giijiyeen oo aan wax xalo laga gaari jirin ayay Cabdiraxmaan Ciro ku jujuubayeen inuu siyaasadda ka giijiyo tusaale iyadoo komishinkii raacis casilay iyadoo bishii Juun lagu jiro iyadoo doorashadu November dhacayso iyadoo la arkayo inaan 4 bilood komishin doorasho qaban karaya jirin oo la soo casilay ayaa Cabdiraxmaan bishii August 12 ku dhiirigelay inuu mudaharaad sameeyo oo uu soo saaro taageerayaashiisa waa kuwii ku dhintay 7 carruur waxa ku kalifayay Mr. Xirsi iyo Cabdisaaq Khaliif waxay ahayd inay arkeen in xisbiga wadani iyagoo isna gudoomiye ka yahay aanay ka soo saari karin ururada waayo waxay aaminsan yihiin gacan uur ku jirta inuu ka noqonayo xisbiga sidaas awgeed waxay talo ku goosteen in Cabdiraxmaan iyo deegaankiisa ku soo dhuntaan aakhirkii waxaan aaminsan isleeyahay anigu maadaama ragiska mabaadiye yihiin mushkiladda sool ayaa nagu soo baxday Cabdirasaaq wuxuu ka bareeray deegaankiisii inay waxa dhacay ka dhacaan xirsi muddo badan wuxuu ka difaacay Cabdirasaaq inaanay waxay dawladdu sheegto dhan wuxuu lahaa waa been sidaas awgeed laba nin oo isku jeeda inay ahaayeen arrimo badan oo ku soo koobi kareenin ayaan ku cadeyn karayaa markay saa tahay weli xirsi isagu kama quusanin sida Cabdisaaq Khaliif laascaanood u gubay inuu deegaamo ka mid ah Hargeysa iyo Burco inuu dab sulo ama dadkeedu iyo dawladdeedu islaayaan isagoo ku soo gabanaya Cabdiraxmaan isagoo ku sheekeynaya wararka aan meesha fog gaarsiisay oo maalin shirkad qabtaan ka maqlaayay Afrika baad san samaysay maantana meed ugu daraysa wax dadka reer Soomaaliland ama gaar ahaan dadka beesha dhaxal ilaahdo maanta aan dhex oolin inuu xirsi xoqayo isagoo uga dan leh inuu mustaqbalkiisa siyaasadeed warwar ka qabo isla markaana isleeyahay ku survive dagaalka noocaas ee siyaasadeed waxay ku tashadeen oo isleeyahay way isku ogaayeen in dalka qas iyo qalalaas ka dhaco oo dabeetana uu Cabdiraxmaan madaxweyne ku noqon karay sida waa aragtidan isleeyahay way ku tashadeen isku soo wada dub xirsi sidaa awgeed inuu Cabdisaaq Khaliif difaaco waxyaalahaas oo dhan ayaa maaragtay muujinaya inay ragisku afkaar yihiin taariikhda dheer ee soo wada mareen iyo ilaa hadda iyagoo rag saaxiiba ah haddaynu dhinaca siyaasadda ka eegno gudoomiye xirsi hadduu doonayo inuu musharaxu wado iyo isaguba ay dalka ka taliyaan oo mustaqbalkiisa doonayaan wuxuu soo jeedin lahaa talooyin dhaxalgala oo laga hortagi lahaa colaadda laascaanood amaba nabadda lagu soo celin lahaa wuxuu ka daba tegi lahaa saaxiibkii Cabdisaaq Khaliif ka daba tegi lahaa wuxuu samayn lahaa ergeyn inuu kala ergeeyo isaga iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaanu hadalan oo Cabdisaaq waxaan la dareenahay dadkayga ayuu isaga dhexda u xiran lahaa inuu Cabdisaaq xalka la doono laakiin wuxuu ka doorbiday oo u haystaan inuu Cabdisaaq pressure ku soo saaray Cabdisaaq wuxuu islahaa marka laascaanood ka bilowdo Burco iyo Hargeysa iyo Berberna way ka bilaabmaysaa
dabeetana Soomaaliland waxay noqonaysaa meel uu Muuse cararo waa markii koobaad siyaasadda intaan garanay Soomaaliland aan arko gudoomiye mucaarida oo wuxuu ku mucaariday aanay ahayn siyaasadda iyo barnaamijka siyaasadeed xisbiga talada haya laakiin mucaaradiisu ay ku wajahan tahay si dalku u burburi lahaa sidii wadanka maaragtay uu dib ugu noqon lahaa